السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبada ku xiran channelka layaabka media ee YouTube. maanta waxaa idiin haynaa 10 qof oo sameeyay waxyaabo aad la yaabi doontaan ay kaamirada qarsoon duubtay. kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta. nin biisaa geeya guriyaha ayaa dalab kaga yimid guri, laakiin wax cajiib ah ayuu kula kulmay marka uu garaacay albaabka. waxaa ka furay daanyeer weliba lacagtiisa siiyay, kadibna ka qaatay biisaha dalabka ah. laakiin ninka biisaha ayaa aad ula yaab daanyeerka oo la kulmay. nimanka halkan ka muuqda ayaa sameyn wax u eg inay halkan saaraan wiishka dadka ay raacaan. ugu dambeyntii wayba sameeyeen wayna saareen farasta, balse xagga sare markay tageen farastii gadaal ayay u soo bixiyeen. balse gabartan bay cajiib la noqotay ficilka ay sameeyeen ragga farasta wata. raggan halkan fadhiyo waxaa ku dhacday inuu soo galo doofaar wadada ka soo qaldoontay, kadibna fadhiga ayay ka carari gaareen. balse waxayba isweydiinayeen sida ay ku dhacday doofaarka inuu soo galo meeshan iyo sida ay ugu bixi lahaayeen meeshan. balse doofaarkii ayaa garan waayay miraayadda albaabka. ugu dambeyntii waxaa dhacay wax la yaab leh. ninkan inoo muuqda ayaa doonayay inuu qashinka ku tuuro kursiga uu wato, weliba si awood leh. balse qaladka uu sameeyay waxaa ku dhacday inuu ilaaway inuu kursiga lahaa lugo. maxaa ku dhacay la daawada. hooyadan labada caruur wadata ayaa xakameyn weysay inay labadeeda caruurba indhaha ku hayso. mid yar bay soo qaba islahayd, balse arrin cajiib ah ayaa ku dhacday la daawada. gabartii yareed baa garaashka gawaarida albaabka ayaa la tagi rabay, balse si dhaqsiyo ah ayay kaga gaartay. sidaas ayay ku badbaadisay. booliis officerka inoo muuqda ayaa arrin aad la yaabi doontaan ku dhici doonto. in yar kadib dooli ayaa kasoo horbaxay, laakiin falcelintiisa ayaa cajiib ahayd. markaas ayuu ku sigtay inuu ka cararo dooligii. ninkan inoo muuqda ayaa joogay meel sawiro artist ah. hal mar ayuu go'aansaday fal tuuganimo ah markuu isku dayay inuu sawir farshaxan ah shaatigiisa ku qorsado, laakiin wuxuu ogaan waayay inay kaamirada qarsoon duubaysay. caruurtan inoo muuqata ayaa ahaa ilmo aan laga warqabin oo ciyaarayay. waxay joogeen meel madxaf ah, balse waxa dhacay ayaa la yaab ahaa. cunugan 5 jirka ah ayaa isku dayay inuu xabadka geliyo farshaxanka inoo muuqda, laakiin waxaa dhacday inuu dhulka ku soo dhaco farshaxankii. qiimaha farshaxanka ayaa ahaa $132,000. ninkan inoo muuqda ayaa isku dayay inuu baraf ka daadiyo gaarigiisa, laakiin hal mar baa waxaa ku dhacday arrin la yaab leh. dhagax aad u weyn ayaa ka soo dhacay xagga sare. ilbiriqsiyo buu uga badbaaday. ninkan aad u jeedaan ayaa kaamirada wax duubta wejigiisa qabatay ka hor inta uusan falka la yaabka leh sameynin. wuxuu soo qaatay dhagax, kadibna wuxuu doonayay inuu ku jibiyo daaqada gaariga, balse dhagaxii ayaa ku soo laabtay oo wejiga kaga dhacay markii dambe. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkeena maanta. haddii uu ku qanciyo muuqaalka ilaawin inaad la wadaagta asxaabtaada. haddii ay tahay marka ay kugu horeysay nagu soo biir. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.